بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صحابتي ذا قيمة إيه قايالة ميل بدي قداونا إنسان وحاذ الله هاي قلب وناكسن شن تمن كمي وحالو بلنسية هاي هدي إلهي راهدو إن لسمية دور شدي مدحوينها أفرت السنة أساس عته قامل لها ودن كان sidaas daraaded asxaabteeda waxa idin leeyahay meel walba ay joogtaan waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka wada baryana in Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu inoo dooro mid dalka dadka iyo diintaba anfaca doorashada bini aadanka waxa ka weyntii Ilaahay oo Rabbi Raxmaan waxa leena adiga noo door meesha wanaagsan qofka wanaagsan dalka u wanaagsan diinta u wanaagsan waxbarashada u wanaagsan horumarka u wanaagsan dhismaha wadanka u wanaagsan dhaqaalaha wadanka u wanaagsan ganacsiga wadanka u wanaagsan Ilaahay Rabbi Raxmaan adiga noo door adaa garanaya Ilaahay Rabbi Raxmaan waa andaalnay Soomaali hadaan nahay wadankeena muddo badan ayuu dhibaato ku soo jiray dadkeena waxay noqdeen qaxooti dibadyaal ah waxay noqdeen tahriibayaal duurarka daadsan waxay noqdeen dhalinyaradeena kuwa saxaraha ay ku daaqaan bahalada iyo yeeyda sidaas darteed dhalinyaradeena dalka ku noolna waxay noqdeen kuwa aan hami u haynin wadankooda hooyo in ay ku noolaadaan qof walba oo Soomaali ah oo dhalinyaro ah oo maanta Soomaaliya ku nool wuxuu jecel yahay inuu wadankiisa ka tago oo wadan shisheeye aado sidaas daraadeed Ilaahay Rabbi Raxmaan waxaan ka baryeena Ilaahay Rabbi Raxmaan adoomadaada yahay awood ma lihin in adiga noo doortid mid dalkeena na jeclaysiiya mid dalkeena noo hagaajiya mid diinta iyo dadkaba ay ku nastaan sida ognahay dadkii waxay ka sheekeynayaan doorashada bari way dhacaysaa wadooyinka dhan waa la xirxiray run ahaantii hadaarta magaalada inay aadid maanta dhibaato badan ayaa ka maraysa meelaha qaar oo magaalada meelaha ugu muhiimsan hadaarta inaad dankaas soo gasho ama wax ka doonatid ama ay shaqo ay tahay yacni waad ka xayirmaysaa sidaas darteed waxa Allah subhanahu wa ta'ala ka baryana midaan wadankan ay kala xayireenin midaan qaxna gelineenin midaan murug iyo dhibaatana gelineenin mid caafimaadka iyo dhalinyarada Ilaahay wada caafimaad hay intaba u wanaagsan mid dhalinyarada maanta Ilaahay Rabbi Raxmaan ku kalifay in wadankooda ay jeclaadaan ay ka shaqeystaan ay joogan horumarka dalkoodana ay ku faanaan sidaas darteed adinkan asxaabay waxa idinka codsanayaa inaad baridan oo adkeysaan Allah subhanahu wa ta'ala baridiisa wax ka wanaagsan malahan Ilaahay subhanahu wa ta'ala oo la tala saarto wax ka wanaagsan malahan run ahaantii waxaan jecelnahay in wadankeena uu la tartamo wadamada kale ee jaarka la ah maanta waxaan haysanaa wadan hodan ah wadan qani ah wadan barwaaqo iyo wax walbaba ay ka buuxaan Ilaahay oo noo door meesha wanaagsan Ilaahay oo nagu aadi kan daacad ah ee dalkan daacadnimada ku sugaaya kuma dooranayna ilmo adeernimo kuma dooranayna dhalasho waxaan ku dooranayna Soomaalinimo Ilaahay Rabbi oo adigana noo door kii dalkaaneetay u daneen lahaa asxaabteeda aamiinta soo adkeeya run ahaantii inagu maanan arkin wadan dawlad leh maanan arkin ma aan arkin wadan isku hanaagsan oo hagaagsan maalintii indhaha aan kala qaadnay waxaan ku soo kala qaadnay madaafiic iyo qax iyo dhibaato markii aan soo caqliyeysana waxaan ku soo caqliyeysana wadan burbursan markii aan weynaanay waxaan ku soo weynaanay wadan aan hagaagsaneen oo waxbarashadiisa xataa aysan wanaagsaneen markii aan reero yeelana oo ubad aan dhalnana waxaan ku dhalnay jawi murugo iyo walwal iyo xaaladda wadanka maanta ubadkeena ayaa waxay ku sii dhaweeyeen inay hana qaadaan Ilaahay Rabbi Raxmaan oo nagaarsi hanaanka ugu wacan ee dawladnimo ay maanta Soomaaliya ku degi karto Ilaahay Rabbi Raxmaan oo noo door in dalkeena uu noqdo mid loo soo dalxiis tago oo loogu dabaaldego oo dhalinyaradu ay dib u soo laabtaan oo dibadyaalada ay dib ugu soo laabtaan Ilaahuna tus oo nagu qanci barwaaqada iyo nimcada wadankeena aad ka dhex abuurtay marka asxaabay noo soo duceeya insha Allah hadii Ilaahay yiraahdo saas ayaan muuqaalka yarka idinku soo gudbinayaa aad iyo aad u mahadsantihiin galab wanaagsan